raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadaha qiimi badan kusoo dhawoow abekatiish. maanta muuqaalkeena muuqaaladii hore uu ka duwan yahay. waxaan kula wadaagi doonaa hal farsamo oo haddii akoonkaaga your account has been locked lagugu xiro. waxaan kula wadaagi doonaa stebyo ama farsamooyin aan adeegsado oo aniga maaragtay markii qolada aan meelo badan aan kala xiriira kadibna jawaab fudud ay soo siiyaan. farsamadaas waxaa ku jirto labo farsamo oo aad iyo aad ku cajibgelin doonto, oona hubo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kugu soo jawaabaan hadduu eeb yiraahdo insha allah. bal labadaas farsamo ayaan kula wadaagi doonaa. labada farsamani muuqaalkan gudihiisa ayaan ka eegi doontaa hadduu alla yiraahdo. intaan muuqaalkan gudagelin fadlan waxaa ka codsan lahaa haddii maanta kugu horeysa ee taa channelka soo booqatay subscribe inoo saar, sidoo kale jeliska yar furo si ay maaragtay muuqaal weliba oo channelka kusoo kordha saad ula socotid. haddii aad nala joogtin muuqaalka inoo loo garay sidaas lamid ah asxaabtaada dal iyo dibid meel walba uu joogo, qof waliba saaxiibkaaga la jecesha muuqaalka caynkan oo kale ah lasii wadaag hadduu alla yiraahdo. marka bal inakeen aan isla bilaawno muuqaalka oo faahfaahsan. horta ugu horeyn waxaa u baahan tahay waxaa isticmaali doonaa tricks-yada aan isticmaalo. waxaa ka mid ah midkan hadda ay ku qoran tahay calaamadaas iyo midkan kale labo sidaas oo ku haysataa ma labo waa soo soconaysaa oo inakeen midkan ku dar 3 midkan ku dar 4 qoraadada waxaan kula wadaagayaa qoraadada maaragtay oo jawaabta degdega aan ka helo. marka afartaas ayaan kula wadaagi doonaa. waa mid waa kanaa, midna waa kanaa, labo sidan aa ku haysataa, labo midna waa kanaa, 3 midna waa kanaa, 4 qoraal isla sameyn doona. marka inakeen horta ugu horeyn haddii oo maaragtay facebookkaaga sidan uu ka yahay waaye yaa sidan hadduu yahay facebookkaaga afartaas tricks ayaa isticmaali doontaa. anaana ku tusinaa qaabka u isticmaali lahayd. hadda dikan aan fiiriyo aan isla aragno gabadhan waa ujeedaa wuxuu ku xojeynayaa confirm your identity. waa in ID card aqoonsi aad haysatid ayuu ku xojeynayaa. marka ID cardkaas inaan optionkaas aan bedelna rabnaa sida ku bedeli lahayn ayaan isla tagi doonaa. ugu horeyn horta waxaad degi doontaa Google Chrome-kaaga markaad tagtid waa optionka oo maaragtay ugu horeeyo isla sameyn doona. waa isla ciwaankaas ka kacsan hadduu alla yiraahdo. qaybtan searching ayaa waxaa ku qori doonaa Facebook. waa kana meeshan ay ku qoran tahay feedback facebook.com ku dhufo. marka sidana ugu dhufatid waxyaalaan ku soo qabanayaa maaragtay optionadan dhan ayuu ku soo qaban doonaa. marka intaas uma baani waxaan u baahanaa optionka ugu horeeyo oo haddana ugu koreeyo ku dhufo. optionka marka ku dhufatid optionkan wuxuu kugu sheegayaa waxaa loogu baahan yahay inay gmail-kaaga meeshaas ay gelisid, sidoo kale product or featureska xaaladda markaas ay jirto, your feedback falcelintaada sida noqon lahayd. product or featureska meesha waa pages miyaa sidoo kale profile miyaa waxyaalahaas intaas ayay gelin doontaa. hadda sida halkan kaaga muuqato kusoo qabanayo profile iyo pages iyo kusoo qabanaa. marka iswaaleysid login ayaa ku xulan doontaa. marka inta waxaa gelin doontaa gmail-kaaga. meeshan haddaan geliyo waa kana nima maxamed heebi galaal. sidaas markaa geliyo inta feedback ayaan gelin doonaa. waa kusoo qaadi doonaa feedbacka sida hore kugu sheego. hoos ayaan kusoo bilaabi doonaa. kan ugu hooseeyo waa midkan waxaan noogu qoran I want to report about something to my Facebook account. afartan markaan kula wadaago haddii sida oo ugu saxsan u sameysid sida aan u sameynayo waxaan hubaa in maaragtay ay ku guuleysan doontid. kadibna waa kaas sidan ayuu soo qabtay. waxaa sameyn doonaa marka send ayaan dhihi doonaa. okay waxyar qaladaa jiray. okay hadda wuu dirsamay maasha allah. optionka ugu horeeya waa kaas.
optionka labaad isla sidan adoo joogo ayaa waxaa sameyn doontaa calaamada saddexda dhibcood ku dhufo. saddexda dhibcood markaa ku dhufatid waxaa ku xulan doontaa qaybtan ay ku qoran tahay policy and reporting markaa ku dhufatid isla waxaa tagi doontaa meeshan ay ku qoran tahay qaybtan report a problem with Facebook ayaa ku dhufan doontaa. markaa sidan ugu dhufatid stepkani oo stepka labaad aan aniga adeegsado oo facebookyada badan aragtay oo dib loo soo celiyey. marka waxaan ku dhufan doonaa qaybta hore ee ku qoran tahay report a problem markaa ku dhufto waa step 2 waa stepka hadda aan marayo hoos ayaa u socon doontaa. meeshan kaaga soo qabanayso no calaamadaas nooda ayaa taaban doontaa. kadib waxaa ku xulan doontaa optionka labaad ee ku qoran tahay the solution does not work. xalkan wuu ii shaqey waaye marka xalka labaad waaye waa kusoo laaban doontaa codsiga labaad ayaan tegi doonaa. sida aan kuga calaamiyey waa la socotaa qaybta labaad ayaan tegi doonaa oo waakina qaybtan ay haddana soo koobiyey doonaa. mar waliba akoonkaaga namekiisa iyo local date-ka xili markaas lagaa xiray ayaad maaragtay mar walba soo qaadan doontaa iyo marmarka qaarna waxaa faahfaahin doontaa akoonkaaga iyo waxyaalihiis. marka sida markaa sameysid kadib waxaa sameyn doontaa meeshan ay ku qoran tahay submit ayaa ku dhufan doontaa. okay wuu dirsan yahay oo codsigaasna waa dirnay. isla sidan adoo joogtid waxaa sameyn doontaa back ayaa dhihi doontaa hal mar dib u laabo. kadibna waxaad sameyn doontaa isla optionkan la adeegsanaya markan oo hadda aan kula wadaagayo. waxaa dhihi feedback for the help center markaa ku dhufatid inta waxaa gelin doontaa qoraalkii hadda aan soo koobiyeynayay oo u dambeeya oo xili lagaa xire waayo waa midka hadda inoo saaran kan ayaa koobiyeyn doontaa waa qoraalkii labaad weli marayna. kadibna send ayaa dhihi doontaa. send markaa dhahdid sidan hadda inoogu dirsamay adoona inta ka bixin oo meel kale aadin optiona kula wadaagi doonaa kan meeshiisa inuu taagnaado. optionka saddexaad ayaa rabaa inuu kula wadaago. optionka saddexaad waxa waaye waa gmailka haddaa heesid oo hadda sidan gmailkan ayaan soo kicin doonaa. gabadhan ayaa iskale gmailkan ayaan soo kici doonaa. gmailka markaa soo kiciyo waxaa sameyn doonaa meeshan maaragtay qoraalka igu diyaarsanaa. haddaan qoraalka aan dib u galo qoraalka saddexaad ayaan rabaa waa kinaa qoraalka saddexaad kan waaye waa qaban doonaa. intaan maaragtay markaa sidan aan usoo qabto intaan ayaan soo qaadi doonaa. waxaan dhan soo qaado koobi soo dheh koobi markaa dhahdid google play store-kaaga ayaa tagi doontaa. google play store-ka markaa tagtid waxaa ku qori doontaa meeshan facebook markaa ku qortid searchin ayaa dhihi doontaa. applicationka originalka ee facebook qolada facebook ay leeyihiin ayaa tagi doontaa waa ku dul dhufan doontaa. markaa sidan ugu dhufatid meesha ay ku qoran tahay developer haddaan ku calaameeyo meeshan ay ku qoran tahay developer contact ayaa ku dhufan doontaa. kadib waxay ku dhahayaan website ahaan miyaad ula xiriireysaa mise email ahaan. sidaan hadda qaybtan ay ku qoran tahay by email aan rabaa inaan u diro email ahaan ayaan dhihi doonaa. kadibna meeshan ayaa maaragtay qoraalkii aan soo qortay meeshan oo qoraalada badan lagu qoray ayaan gelin doonaa. kadib waxaa sameyn doonaa qaybtan sida halkan ujeedid qaybta request for access links facebook local account ayaan qaadi doonaa. waxaan geyn doonaa ciwaan ayaan ka dhigi doonaa subject cilada haysato codsigaas ayaan gudbisanayaa. kadibna waxaa sameyn doonaa qaybtan sideeda ku ahaato. marka sidan iyadoo ku waxaa sameyn doontaa facebookkaaga ayaa screenshot ka soo qaadi doontaa. facebookkaaga imaaw okay dib u laabo. okay sida halkan kaaga muuqato facebookkaaga ayaa imaan doontaa. markaa imaadid kadib waxaa sameyn doontaa screenshot ayaa ka qaadi doontaa. screenshot ayaan ka qaadi doonaa. sida hadda u muuqato screenshot ayaa ka qaadnay. screenshotkaas markaa ka qaadna waxaa sameynaynaa dib ayaan u laaban doonaa. waxaan tagi doonaa gmailka markaa tagno spacer ayaan bixi doonaa. markaa sidaas adhoo calaamadan ku qoran tahay oo wareeg isku jiro waa feelasha meesha laga diro haddii aad gmail isticmaasho waa taqaanaa. marka qaybtan kore ayaa waxaa ku dhufan doontaa attack fail ayaa kusoo attack dagareyn doontaa. failkaasna wuxuu noqon doonaa sawirka markaas aa qaaday haddaa ku tusiyo sawirkaana rabaa inaan kusoo taagareeyo waa kaas
sawirkaas waa sawirkii hadda gabadhaas u xiran 27 oo laga xiray marka sawirkan ayaa kusoo taageeray doonaa sida marka dhaho kadibna send ayaan dhihi doonaa okay optionkaasni uu inoo dirsamay optionkaas uu inoo dirsamay waayo Gmail ayay nagu soo jawaabi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan option kale aan kula wadaaga waxay tahay sida haddii aan ku dhahay Google Chrome kaaga joog ka tagin marka Google Chrome kaaga joog haddana saddexdaas dhibcood ayaa tagi doontaa saddexda dhibic markaa tagtid qaybtan ay ku qoran tahay policy and report ayaa ku dhufan doontaa marka ku dhufatid waxa ku qori doontaa meeshan qaybtaas qori report a problem with Facebook ku dhufo marka sidan aad ugu dhufatid waxa sameyn doontaa ma aragtay calaamad iyo wax kale report-ka dhan raadinayso marka waa sirta u dambeysay waaya sirtan adi oo kaliya kula wadaaga waayo optionkan waa option aad iyo aad ku cajib gelin doona calaamada searching-ka mujeedada calaamada searching-ka ayaa tagi doontaa haddii muuqaalka ay soo sugtay waa sir u dambeysay waa aan kula wadaagayo waayo waa ugu talagalayba inaan muuqaalkan dadka u dambeeyay aan ugu talagalay marka meeshan wait 24 hours to access your Facebook account ayaa meeshaas ku qori doontaa qaybka u qori lahaydni qaybtaas ayaan ku soo dhigi doonaa waa kina hadda ku soo tusiyo waa optionkii afraad waaye waa kina waa codsi u dambeeyay aad diyaari waaye oo dad badan aan ugu xaliyay optionkan adaa kugu talagalay inta xogtaada dhameystiran ayaa geli doontaa your details waa qaybtan waa marka qaybta aan kugu qoray meeshan aan kugu qoray ada oo kaliya hadda ku sheegay intaan waxa ku soo gelin doonaa description-ka ama comment-ga ayaa bin ku qoran doonaa afarta codsiba insha Allah hadduu alla yiraahdo marka waxaan ku rajaynaa inaad ku guuleysan doontid marka sida marka u qortid hadda optionkaas ayay noo mareysaa sida hadda marka u qornay isla meesha ugu hore optionka ugu hore ku dhuf searching iska dheh waa kina marka uu ku soo qabtay wakaas uu haya sida markuu kugu soo qabtay asiga ayaa ku dhul ufan doontaa marka asigu dhul ufadii maxaa sugay marka calaamadan oo meeshan ku qoran no dhahay mayo waa diidanta waayo مسمى كعاوي ويلي عاونات مكيستي ميا دي مركا option ka mar walba waxa xulanaysa marka note dhahdi the solution does not work marka xulatid option kan ay ku soo qabana nakeen marka qoraalka soo koobiyaysanina qoraalkana soo qaadan doona qoraalka marka soo qaato okay ilaa iyo intaan ayaan soo qaadan doona intaan waa codsiga meesha ku qori lahayd kor searching-ka marka inta imaadid kadib waxa sameyn doontaa qaybtan ayaa paste ku dhigi doontaa paste ya dhahday hadda way password-kayga mu sheegi kari haddii noqotani waa mid sir ay noqonaysa oo password-kaas iyo waxaas u qor sida markaa sameysid data password-ka ku darso ada iskale kadibna calaamadan ay ku qoran tahay submit meeshaas ay ku qoran tahay submit ujeeda ayaa dirsan doontaa okay marka sidaan u dirtid kadib waxa sugi doontaa feedback falcelin in maaragtay aad ku qorsanin oo meel walba oo maaragtay aad abil codsi u dirsanaysid inay akoonka ku soo celiyaan aad ku dadaashid juhdi badan aad gelisid kadib waxa rajaynaa in akoonkaas si dhib leh yar leh inay kugu soo celin doonaan hadduu alla yiraahdo marka waxa ku leeyahay maanta muuqaalkeena waxaan ugu talagalay inaan asxaabta ugu faa'iideeyo hadduu dheer yahay dhib ma laha waayo faa'iidada ku jirta ayaa tiro badan hadduu alla yiraahdo haddii muuqaalkan ka heshay fadlan waxaan ka codsan lahaa in asxaabtaada aad la wadaagtid aad u share gareysid dal iyo dibad dal iyo dibad meesha joogaanba inaad ugu share gareysid marka kan 24 hours kan waxa waaye codsigan waa 24 saacadood ay kugu soo jawaabo midka u dambeeyay waaya waa markii afarta soo sameysid midka saddexaad markaa soo sameysid midka afraad ka dhigay midkan insha Allah waxaan ku leeyahay marka tan inta kulmi doona muuqaalkan oo kala waxaan idinkaga tagi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh see you another next video insha Allah waqtigaagana ka faa'iideyso